waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidaaya Show kun iyo koojeer ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago 5 xaqiiqo u gaar ah jalaaga caanka ah Salmaan Khan ka oo maanta u dabaaldegay sanad guurida dhalashadiisa 56 haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa 5 xaqiiqo oo u gaar ah jalaagan Salmaan Khan balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaa janaalka inaad subscribe saarto haddii muuqaalku cajab gelin hadhow haydoowina like inoo saarto wixii ra'yi aad qabtana commentiga hoos inoogu reeb siina sheeg garay muuqaalka soo dhawaada saaxiibayaal Megastar Salmaan Khan waxa uu ka mid yahay aktarada aadka lagu jecel yahay Bollywoodka sidoo kale waxa uu ka mid yahay aktarada ugu guulaha badan shirkadda caanka ah ee Bollywoodka markaan eegna Salmaan Khan magaciisa oo dhameystiran waa Abdulrashiid Salim Khan waxaana loo garan og yahay Salmaan Khan waxa uu dhashay 27 Diseembar sanadii 1965 waxa uu ku dhashay magaalo lagu magacaabo Indore oo ka tirsan gobolka Madhya Pradesh ama Madhya Pradesh ee dalka India Salmaan Khan abihi waxa lagu magacaabaa Salim Khan halka hooyadii lagu magacaabo Sushila Jarak Salmaan Khan waxa la dhashay jilayaasha kala ah Suhail Khan iyo Arbaaz Khan sidoo kale waxa la gabar lagu magacaabo Alvira Khan taa u dhaxda jilaaga caanka ah ee Atul Agnihotri Soomaalidu soo Abinash ay u yaqaanaan waa jilaaga lagu xasuusto filimkii caanka ah ee Abinash markaan eegno Salmaan Khan iyo 5 xaqiiqo oo laga diiwaan galiyay jilaagani Salmaan Khan xaqiiqada ugu horeysa aan ku bilaabi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay filimka caanka ah Bajrang Bajan waa mid kamid ah aflaamta ugu fiican ee uu sameeyay superstar Amanda Megastar Salmaan Khan laakiin filimkan markii hore waxa loo bandhigay aktarada kale ah Aamir Khan sidoo kale Rajnikanth ama Jestola waxa uu taqaanaba laakiin nasiib xumo waa iska diideen aktaradaasi waxaase meel cidla ka helay jilaaga caanka ah ee Salmaan Khan nasiib wanaag waxa uu noqday filimkan mid kamid ah aflaamta loogu jecel yahay jilaaga caanka ah ee Salmaan Khan xaqiiqada labaad Salmaan Khan markii ugu horeysay uu shaqada aflaamta bilaabo waxa uu ku bilaabay inuu qoro sheekooyinka aflaamta sida abiyi Salim Khan kuna darso Salmaan Khan filimkiisii ugu horeeyay uu sheekadiisa qoro misana uu director caawiye ka noqdo waxa lagu magacaabaa Falag waxaan la daawaday sanadii 1988 xaqiiqada saddexaad Salmaan Khan markii ay isku dhaceen isaga iyo gabadhii uu aad ku jeclaa Aishwarya Salmaan Khan aad ayuu ugu xumaaday dhanka kale hal habeen oo dhan ayuu hortaagnaa guriga Aishwarya Rai laakiin iyadu wax naxariis uma aysan muujin umana aysan sameeynin sida la sheegay saaxiibayaal xaqiiqada afraad Salmaan Khan heerka waxbarasho waxa uu ka gaaray ilaa dugsiga sare Salmaan Khan markii uu dhameeyay dugsiga sare waxa uu ku biiray college si uu degree ugu qaato ama shahaadada degree ugu qaato laakiin nasiib xumo wax yar kadib uu isaga baxay waxa uu ka doortay ama uu doortay inuu ku biiro shirkadda aflaamta ee Bollywoodka xaqiiqada ugu dambeysay ee jilaagani aan kala wadaagi doono waa Salmaan Khan Salmaan Khan waa aktarka kaliya ee soo saaray gabdhaha ugu badan ama gabdho badan oo ku cusub shirkadda aflaamta sameysay ee Bollywoodka aadna ugu caabiyay sidii uu noqon lahaayeen atayshooyin caan ah oo dunida laga aqoonsan yahay ama laga garto intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xaqiiqooyinkii aan kala wadaagayna jilaaga caanka ah Salmaan Khan ka oo kamid ah aktarada ugu awoodda badan fanka India khaasatan Bollywoodka fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar janaalka haddaad ku cusub tahana subscribe saaro si aad u hesho muuqaaladan iyo muuqaalo ka xiiso badan wixii ra'yi aad qabtana commentiga hoos inoogu reeb siina share garay oo la wadaaga asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena